wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa dib u furtay xarunta shaybaarka guud ee qaranka. guddiga beeraha horumarinta reer miyiga iyo xoolaha iyo kalluumeysiga golaha shacabka ayaa kulan su'aalo lagu weydiinayay waxa ay la qaateen wasiirka kalluumeysiga ee kheyraadka badda xukuumadda Soomaaliya. wararka caalamka aad warkeena ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya weerar khasaaro geystay oo ka dhacay magaalada caasimadda ee dalka Burkina Faso. warkii oo fidsan ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegay hanti dhowraha qaranka. sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxa uu daafuray mashruuc laga faa'iideysan karo ilayska cadceedda. wariyana Leila Cabdi Cusmaan ayaa warbixinta warkaasi inoo faafaynaysa. barnaamijka ka faa'iideysiga tamarta cadceedda ee solar system-ka oo xafiiska bay'ada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo garowdayn ka yahay mashruuca cadceedda ayaa waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee xafiiska bay'ada ee ra'iisul wasaaraha Cabdirasaaq Maxamed Maxamuud oo yiri waxaan iminka ka faa'iideysanaynaa kheyraadka dahan ee dalkeena ay ka mid tahay cadceedda waayo Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka hela sanadka oo dhan qorraxda. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu faa'iidada badan hela qorraxda si joogto ah hela sanadka oo dhan. macnaheedu waxay tahay in laga faa'iideysto qorraxda cadceedda aan helayno inaan ku bedelo tamar oo aan ugu bedelo si aan uga faa'iideysto koronto oo dhalino. haddaba cadceedda badan aan helayno kamaana faa'iideysan oo soo dhacan tamar ahaan u bedelaan. ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa xusay in Soomaaliya ay leedahay kheyraad badan kaasi oo haddii laga faa'iideysto difaac u noqon doona in laga hortago waxyeelada cimilada wasaqeynta hawada iyo deegaanka. hab aynu ku isticmaalayno tamarta qorraxda inagoo ka faa'iideysanayna waan wada ognahay shidaalka aynu soo dhoofinayna kharash fara badan baa ku baxa. qiiq buu ku sii daayaa hawada qiiqaasi waxa uu waxyeelayaa deegaankii waxay yiraahdaan dikhowga cimilada adduunka qayb weyn buu ka qaadanayaa kulaylkan cimilada adduunka kululaanayso qayb weyn buu ka qaadanayaa waana kharash qaali ah oo noognaay $1 iyo wax ku dhow ayaa halkii unit leedhihi uu Soomaaliya maanta ka taagan yahay. taa waxa laga bixi karaa inagoo ka faa'iideysano kheyraadka badan ee aynu haysano. dhanka ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ka qayb galay munaasabad xilka uu kula wareegay hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye. hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye ayaa xusay in wadanka uu ugu shaqeyn doono sida uu qabo dastuurka dalka u yaala waxa uu u mahad celiyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha. hanaanka loo aasaasay xafiiskan anigoo midaas ka shidaal qaadanay haddii aan leedmo waxa igu ballan ah inaan xafiiskan ku hogaamiyo si alla ka cabsi leh xirfad wanaag iyo howlkar ay ku jirto. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo alle mahadii kadib madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisii oo run ahaantii kalsoonidoodii siiyay iyo fursadii aan ugu shaqeyn lahaa dalkayga iyo dadkayga. ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa xusay in hanti dhowraha guud ee qaranka in howlo adag ay hor yaalaan ayna tahay inuu u dhabar adeego si loogu tilaabsado horumar uu gaaro wadanka. amaanada culus ee lagu dhiibay haddii aad qof shakhsi ah tahay iyo haddii aad mas'uul qaran tahayba laba culays baa ku saaran. waa marka koowaad amaanadii naftaada saarnaa ee aakhire lagu la xisaabtamayay baa mar kasta ama mas'uul ahaw ama ha ahaana ku saaran. inkastoo qof waliba uu mas'uul yahay waayo kullukum mas'uul wa kullukum mas'uulun can ra'iyati kulligiin mas'uuliyiin baa tihiin qof walbana wuxuu mas'uul ka yahay shaqada loo diray ee uu hayo. hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye ayaa dhawaan xilka loo magacaabay waxaana hanti dhowraha hore uga ahaa magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Leila Cabdi Cusmaan warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.
wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa dib u furtay shaybaarka guud ee qaranka. Cabdullaahi Axmed Kulmiye ayaa faahfaahinaya. xarunta shaybaarka guud ee qaranka in ka badan 25 sano aysan shaqeynin kadib ayaa maanta wax xariga ka jaray wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya Dr. Yusuf Wasiir Abikar Nuur ayadoo tan ay qayb ka tahay sida bulshada Soomaaliyeed loogu dabooli lahaa baahidooda dhanka caafimaadka ee gudaha dalka. madaxa xarunta shaybaarka guud ee qaranka ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Qaasim Cabdi Jimcaale ayaa ka warbixiyay marxaladii ay soo martay xarunta shaybaarka qaranka. waxaan ku faraxsanahay maanta inaan u calaamadeeno 13 Agost 2017 inay noqoto maalintii aan dib u furnay shaybaarka qaranka Soomaaliyeed oo wax badan ka qaban kara runtii baaritaanka caafimaadka iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabo badan ee caafimaadka bini'aadamka la xiriira haddii noqon lahayd biyaha iyo cuntada iyo maxaa la yiraahdaa dadka xanuunsan intaba caafimaadka guud shaybaarka guud ee qaranka Soomaaliya maanta laga bilaabo dib ugu furan yahay. agaasimaha waaxda daawooyinka iyo qalabka caafimaadka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed ayaa ka mahadceliyay in mar kale la helo adeega shaybaarka qaranka. maanta waxaan u taaganahay waa maalin weyn ah horta muddo sugeynay shaybaarka qaranka oo dib loo hirgelinayo oo ah xarunta dhexe ee lagu baarayo laguna ogaanayo cudurrada shaybaarka hadda waxa uu shaqeynayay waxaan sugeynay furitaan weyn oo aan la sugeynay wasiirka wasaaradda caafimaadka wuxuuna qabanayay shaqooyin runtii aad u badan oo lagu diirsaday waxa inoo yaal runtii qalab la ba'as. Dr. Yusuf Wasiir Abikar Nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in maanta wixii ka dambeeyay uu furan yahay shaybaarka guud ee qaranka muddo kadib. shaqo fiican ay qabateen haddii laga maarmo waxyaalo badan oo Kenya iyo Uganda loo qaadi jiray in lagu soo baaro oo maanta idinkii aad baaraysiin waxa waaye guul weyn oo noo soo hooyatay haddaan wasaaradda caafimaadka. waxaa kaloo shaybaarkan uu sameyn doonaa tababaro oo loogu imaan doono gobolada iyo stateyada cusub haddii alla idmo marka waa ku faraxsanahay in ay kala qayb galo agaasimayaasha warka dhameeyay wax badan oo haayo ma jirto laakiin waa idin mahad celinaya. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa kaga mahadcelisay hay'adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay WHO gacanta ay ka geysatay dib u daafurka shaybaarka guud ee qaranka. Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho. guddiga beeraha horumarinta reer miyiga xoolaha iyo kalluumeysiga golaha shacabka ayaa kulan su'aalo lagu weydiinayay waxay la qaateen wasiirka kalluumeysiga kheyraadka badda. wariyaha Ibraahim Guudle Isaaq ayaa warbixinta warkaasi siyaanba qaadaya. guddiga beeraha horumarinta reer miyiga xoolaha iyo kalluumeysiga ee golaha shacabka ayaa xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho kulan kula qaatay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dawladda Soomaaliya. kulanka ayaa wasiirka waxa uu guddiga uga warbixiyay sida ay wasaaraddiisa u shaqeyso iyo qorshaha wasaaradda ee ku aadan horumarinta kheyraadka dalka. xildhibaan aadan Ibraahim Dhaayow oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga beeraha horumarinta reer miyiga xoolaha iyo kalluumeysiga ee golaha shacabka ayaa sheegay in kulankan uu qayb ka ahaa kulamo ay la qaadanayaan wasaaradaha ay guddigooda isku shaqada yihiin. wuxuuna siiyay warbixin dheer waxaan noo qaybiyay su'aalihii aan su'aalnay jawaabtoodii dibna waan soo akhriso doona insha Allah taala warbixin dheer oo anaga aan ogeynina waan siiyay aan ku filaynay haddana insha Allah taala أول واد شقينتنا وماذا شقين أو مهمة وزارة أيضا توي قدوم هذا الشقيان حدنا إن شاء الله تعالى هذه لا يدم واد شقينتنا هراء ونأكسر دونتا حدنا وسيب بالغني ورغدي عربي أسنوقي بي وقرشوي على سنوق كان إن شاء الله تعالى دبا وخرج دونا وربهنتنا إن شاء الله تعالى دبا لو صار شيء دونا. wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dawladda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi ayaa sheegay in guddiga beeraha horumarinta reer miyiga xoolaha iyo kalluumeysiga ee golaha shacabka uu uga warbixiyay waxqabadka wasaaradda iyo waxyaabaha hadda u qorsheysan. wasaaradda kalluumeysiga qorshaheedu wuxuu yahay iyo sidii ay maaragtay wadanka dhaqaalaheeda aad baa loogu rajo weeyay in kalluumeysiga wasaaradda kalluumeysiga door weyn ka ciyaarto. waxaa fursad aan u helay inaan guddiga u sharaxno qorshaha wasaaradda ee ku saabsan wax soo saarka xagga kalluumeysiga. warbixin baan siinay qoraal oo dheeraada su'aalo badan oo guddiguna weydiiyeen waa uga jawaabnay. annaka lafteeduna waxaan doonaynaa guddiga inaan taladooda dhageysano oo arrimahaasi in xukuumadda iyo baarlamaanku iyo guddiga oo dhan iyagoo iskaashanaya baa wax wada qaban kara. Ibraahim Gudle Isxaaq, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.
wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka ayaa waxay ka warbixisay dhismaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka. wasiirka wasaaraddaasi Deeqa Xaaji Yuusuf ayaa sheegtay in guddiga muhiim u yahay dhameystirkiisuna uu marayo meel wanaagsan. guddigan horta guddiyadii hore wuxuu kaga duwan yahay. guddigan waa guddi sida uu arinta u socoto uu yahay mid aad u daahfuran. guddiga sharciga lagu dhisaayo guddiga xuquuqul insaanka wuxuu si cad u qeexaa sidii loo soo xuli lahaa musharaxiinta yaa ka mid noqonaya dadka musharaxiinta oo soo xulitaankooda. guddigan sharcigu wuxuu leeyahay wasaaraddu waa in iyadoo kala tashanaysa dowlad goboleedyada ka dhisan dowladda federaalka ayaa waxaan ogeysiinay inay noo soo gudbiyaan dadka ka qayb galaya guddiga oo ku meel gaarka ah xulista musharaxiinta ee guddiga madaxa bannaan. marka guddigan 19 qof ayuu ka kooban yahay. 19kaas qof 5 waxay ka imaanayaan dowlad goboleedyada mid walba 2 ayay noo soo xushay oo mid gabari tahay. gobolka Banaadir waa laga qayb galiyay. dowladda federaalka dad bay ku dartay maaragtay dadka xukuumadda Soomaaliland ka soo jeeda ayagana aqalka sare ayaa loo maray. ka qayb qaadanaya dhismaha guddigan madaxa bannaan. maya guddigan 19 qofood ah ee ka kooban bulshada inteeda kala duwan oo heer goboleed iyo heer federaalba waa guddigii ku meel gaarka ahaa ee soo xulaayay qabanaya arjiyada markii ay yimaadaan ayay kala xulaayay oo soo xulaayay waay. marka guddigan wuxuu guddiyada kale kaga duwan yahay horta waa loo dhan yahay oo maamul goboleedyadii si oo maaragtay aad u maaragtay ay uga mid noqonayaan inay dadkii soo xulaan. marka waa tallaabo aad u wanaagsan. tababar sare loogu qaadayo xirfadda saxafiyiinta ka shaqeeya magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. wariyaha Miladan Axmed ayaa warbixinta warkaasi faahfaahinaysa. tababarkan oo ay iska kaashanayeen ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusoj iyo jaamacadda Jobkey ayaa waxaa ka soo qayb galay ilaa 60 qof oo ka kala socday qaar ka mid ah warbaahinta magaalada Muqdisho iyo macaahidda lagu barto xirfadda saxaafadda. waxaana intii uu socday lagu baranayay casharo ku saabsan anshaxa saxaafadda, farsamooyinka warbaahinta qaybaheeda kala duwan iyo muhiimadda isticmaalka ICT ama tiknoolajiyada lagu isticmaalo warbaahinta. Ustaad Faarax Cumar Nuur oo ah madaxa tababarada ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusoj oo ka hadlayay munaasabadii lagu soo gabagabeeyay tababarka ayaa sheegay in loo qabtay tababarkan si kor loogu qaado aqoonta iyo tayada wariyaasha Soomaaliyeed. Nusoj ka bilaabo Nusoj waxa waaye waxay u dhisan tahay inay tababaro iyo xuquuqda dhalinyarada aad u ilaaliso macnaheedu waa lagu xadgudbaa wax walba lagu sameeyaa iyagoo shaqooyinkooda wata. marka difaacay u tahay Nusoj tababarana marka inay aqoontooda kor u qaadaan ma afay u dhisan tahay. marka maadaama aan qaybta tababarada aan mas'uul ka ahay tababarada kumeeka ama lama dhihi karto tababarada in loo raadiyo lacag in loo raadiyo maartay meel lagu qabto tababarada waa jidka dansaga dhamaano wixii isleeyahay waa la soo sheegaa email wax la soo dira ala leeyahay barnaamijka noocaas ah inaan sameeyay xog noocaas oo kala maadsan u heli karaa intaan raaca. Cabdiraxiin Ciise Cadow oo ah agaasimaha shaqaalaha iyo tababarada ee wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya oo isna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in tababarkan uu muhiimad weyn u leeyahay wariyaasha isagoo uga mahadceliyay mas'uuliyiinta jaamacadda Jobkey iyo ururka Nusoj dadaalkooda ku aadan horumarinta wariyaasha Soomaalida wuxuuna ugu baaqay saxafiyiinta ka qayb gashay tababarka in aqoonta ay qaateen ay shaqooyinkooda ku dabaqaan. Iyadoo magaca wasaaradda ku hadlayo waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo jaamacadda iyo madaxdeeda inay hal abuurkan ay u keeneen oo ay sameeyeen dalabka in hawshan la qabto. waa uga mahadcelinaynaa waana ku faraxsanahay. sidoo kalena waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Nusoj ayaguna dadaalkii jaamacadda soo jeedisay aqbalay oo fuliyay oo intaan arday ah oo meelo kala duwan joogo oo ogahay sida lagu soo arooriyay in dib leedahay in qof kastaba station kasta la xiriiro in la yiraahdo intaas oo qofkeen magacahooda soo dir isku ururintoodii iidaas lafteeda waxa u baahan
waqti aad u badan u baahan iyo dadaal iyo sabr iyo dulqaad horta nasibna u mahadcelinayna gudoomiyaha jaamacadda Jobkey Cabdilcasiis Caagane oo isna goobta ka hadlay waxa uu sheegay in jaamacadda Jobkey ay markasta ka qayb qaadato horumarinta bulshada qaybaheeda kala duwan ujeedka tababarkan uu ahaa in cilmigooda sare loogu qaado xirfadlayaasha saxaafadda si shaqadooda ay ugu sahlanaato barnaamijkan tababarka ee jaamacadda idin samaysay ujeedkiisa wuxuu ahaa in sare loogu qaado xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed saddex arrin oo aan isleenahay aad ayay muhiim u tahay ayaa intuu barnaamijka socday yaan isla garwaaqsanay in aan barnaamijkan uu ku baxo kow wuxuu ahay ethicska journalism ethicska oo runtii aad iyo aad muhiim u ah adduunka takhasus aan ethics lahayn ma jiro si kastaba tababarada kor loogu qaadayo aqoonta saxafiyiinta Soomaalida ayaa wuxuu faa'iido weyn u yahay sidii si sahlan ay ugu gudan lahaayeen shaqooyinkooda saxafinimo waxaana haddii la joogteeyo uu wax badan ka bedeli doonaa wariyaal badan oo baahi weyn u qaba Aaminaladan Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho kulan wacyigelin oo ku saabsan nabadda isdhexgalka bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wariyeen Safiya Sheekh Cali ayaa warbixinta warkaasi Gaalkacyo inoo soo dirtay kulankan ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada gobolka Mudug ee Galmudug ayna ka soo qayb galeen maamulka degmada Gaalkacyo ururada dhalinyarada labada dhinac aqoon-yahano abwaano ururada haweenka iyo qeybaha bulshada ayaa inta uu socday waxa looga sheekeeyay muhiimadda nabadda u leedahay bulshada gobolka Mudug waxaana lagu bogaadiyay in bulshada ay qayb laxaad ka qaataan sidee nabadda uga wada shaqeyn lahaayeen qaar ka mid ah xubnaha dhalinyarada gobolka Mudug ayaa kelmado dardaarana ka soo jeediyay munaasabada Mudug marka waa soo jabeen jabda boolaamaya insha Allah taala awaankana waxa la ku soo dhawow degmadaadii ina marwar badbaadiyid oo gabayada mideynta insha Allah taala ururka isdhexgalka bulshada ka shaqeyn doona gabayada lamid ah hal ku dhigyada lamid ah hal ku dhigyada ina u soo gudbisid si bulshadu ay u gudbiyaan waa in nasiib aniga iyo intay gudaada ah ee la kulanta dhalinyarada yararka ah ee ubaxa soo baxaya ee dantoodii intay garteen intay is abaabuleen ayagu maanta wadaagaya siday midnimadii u soo celin lahaayeen magaaladan aad u jeedid dhalinyaradan aad iyo aad u qofxoon wiilasha isugu jiraan wallahi waxay ku noolaan karaan wallahi wax ku baran karaan wallahi wax ay ku sii joogi karaan waa nabad abwaan Cabdirasaaq Hogal Caafi oo kamid ahaa abwaanintii lagu casuumo kulanka ayaa goobta ka soo jeediyay tix suugaan oo ku cabiriyay midnimada Soomaaliya dhalinyaradana ugu baaqay inay nabadda garab siiyaan waxa tiin hadoro waalidkiina la shaqeynaya mooyin baleedii waxaan ka codsanaya idinka badimaayo waa khasab sameeyo codsi baad barateen adeer waxaa sameysaan wixii khaldan saxa wixii ladan hee awaanta lama miisan karo maalin gelin kedi bisigtiyo lafaha sugtay maal ku dhamatay madal beenu leeniyo hirsowdhigiyo muqaaliku midooba diinteenu waa lagama marmo duqa degmada Gaalkacyo Xilsi Yuusuf Barra ayaa sheegay in ay wadaan dadaalo ay ku doonayaan in bulshada Gaalkacyo ay ku mideeyaan kala xirnaanta Gaalkacyo dadaal badan baan wadnaa insha Allah waana laga guuleysanayaa dilaydmo dadaal bilow ah baa socda hadda waxbaan noo muuqda fafaalan u jeednaa dadkii dagaalka way ka daaleen intiinaana waa ladinka rabaa inaad ka qayb qaadataan muddooyinkii dambe waxaa Mudug ka socday kulamo lagu baraarujinayo bulshada sidii nabad loo heli lahaa kaasi ay wadeen dhalinyarta labada dhinac Safiya Sheekh Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Gaalkacyo halka warkaasi aad kala socotaan waa TV-ga qaranka xaruntiisa magaalada Muqdisho imika wararka caalamka weerar khasaare geystay oo ka dhacay magaalada caasimadda ee dalka Burkina Faso weerarkan oo ay ku dhinteen ilaa 17 qof oo looga shakisan yahay inay geysteen koox argagixiso ah waxa uu ka dhacay caasimadda dalka Burkina Faso ee Wagaduuga 3 nin oo hubeysan ayaa xabado ku furay macaamiil fadhiday banaan hore hotel iyo maqaayad sida ay sheegeen goobjoogayaal
ciidamada ammaanka ayaa xiray jidadka bartamaha caasimada dalkaasi waxaana soo baxaya digniino xagga ammaanka ah oo ay ka mid tahay in safaaradda Mareykanka ee muwaadiniinteeda Ameerikaanka uga digtay inay tagaan goobahaasi. weerarada noocan oo kala ayaa dhowr jeer ka dhacay magaalada Burkina Faso waxaana la xusuustaa markii koox sidan oo kala ay weerar ku qaadeen maqaayad dalkaasi ku taalo ay ku dhinteen 30 qof bishii Janaayo ee sanadkii tagay. koox xiriir la leh Al-Qaacida oo ka howlgasha gobolka Saaxil ayaa lagu shakisan yahay in weeraradani ka dambeeyso waxaana socda baaritaano dheer ah. Burkina Faso waxa ay qayb ka tahay gobolka Saaxil oo ay dalka Mali ka tirsan tahay halka oo ay ku soo laablaabteen falal argagixisada. warkii caalamka oo idinka geemaanaya TV-ga qaranka xaruntiisa magaalada Muqdisho waa inaga intaan ku kulmi doono warkan kan xiga sidaayo amaana Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah.